وحادلكنا وقارئ لاينبو قرتا calanka بسم الله الرحمن الرحيم كلنتي wanaagsan daawadayaal halkani waa Raja Cable TV ku soo dhawaada barnaamijka taariikhda ee Raja Cable waxay idin socodsiinaysaa anigoo ah Falastiin Khaliif Yuusuf dhanka kaamirada waxa iga caawinaya cilmi taqi barnaamijka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa taariikhda xoolaha Soomaaliya iyo qiyaas ahaan inta lagu qiyaasay tiradooda sida aan ognahay dadka Soomaaliyeed waxa ay leeyihiin xoolo aad fara badan isla markaana Soomaalida inta badan waxa lagu tiriyaa in ay yihiin markaasi dad xoolo dhaqato ah sidoo kale ganacsato beeraley ayaa sidoo kale lagu tiriyaa dadka Soomaaliyeed maanta barnaamijkeena waxaanu markaasi ku soo qaadanaynaa xoolaha Soomaaliya iyo qiyaas ahaan inta ay le'eg yihiin waxaan ognahay in dadka Soomaaliyeed ay inta badan ganacsiyadooda ama se markii bayac mushtarka la yiraahdo ay xoolaha aad uga ganacsadaan sidoo kale waxaa jirta wadamo loo dhoofiyo xoolaha waxaana maanta barnaamijkeena kaga hadli doonaa arrimahaas barnaamijka waxa idin la socodsiinaysa anigoo ah Falastiin Khaliif waa mar kale iyo barnaamijka taariikhda Raja Cable wiilgal tiranka jadu karayn waxadulkeena u gaaray laynabu garta calanka waa tahay daawadayaal aan ku bilowna barnaamijkeena qaybihiisa dhexe ayaan ku jirnaa sida aan ognahay dadka Soomaaliyeed waxa ay dhaqdaan saddexda meesin xoolaad ee kala ah geela lo'da iyo ariga kuwaasi oo Soomaalida meel weyn ugu jira siiba geela markii la yiraahdo ayaa Soomaalidu aad u jeceshahay dhaqashadooda sidoo kale tan dhanka iyo beeca markii la yiraahdo Soomaalidu aad ayay u qadariyaan waxaan ognahay in inta badan dadka reer miyiga ah ay markaasi dhaqaalahoodu uu ku tiirsan yahay xoolaha nool kuwaasi oo ay ka ganacsadaan sidoo kale waxaa jirta ganacsato reer magaalina ee markaasi ka ganacsado dhoofinta xoolaha markaasi laga ganacsado warbixintan ayaan ku eegaynaa qiyaas ahaan waqtigii Soomaalidu markaasi ay ka ganacsan jirtay xoolaha iyo sidoo kale tir ahaan intii ay la ekaayeen waxa kale oo qayb ka ah in markaasi burburkii dawladda dhexe ee Soomaaliya wixii ka dambeeyay aanay helin xoolaha Soomaaliyeed wax daryeel ah tirada xoolaha nool ee dalka Soomaaliya waxaa sanadkii 1980 lagu qiyaasay 40 milyan oo neef 7 milyan oo geel ah iyo 11 milyan oo lo ah sanadkii 2014 waxaa xoolaha Soomaaliya lagu qiyaasay 52.9 milyan oo neef 28.7 milyan oo ari ah 13.6 milyan oo ido ah 6.6 milyan oo geel ah iyo 3.9 milyan oo lo ah sanadkii 2018 waxaa tirada xoolaha nool ee dalka Soomaaliya lagu qiyaasay 56 milyan oo neef dalka Soomaaliya waa dalka ay ku nool yihiin geela ugu badan ee adduunyada geela iyo xoolaha nool oo dhan waxa ay si joogto ah u raadiyaan biyo iyo dhul ay daaqaan maadaama ay u baahan yihiin inkasta oo biyaha iyo daaquba ay yihiin kheyraad aad ugu yar dalka sidaas oo ay tahay dhulka Soomaaliyeed waxa uu in ka badan 50% ku habboon yahay daaqa xoolaha Soomaaliya waa dalka saddexaad ee dunida leh xoolaha dhaqatada ugu badan habnololeedkaas dhaqan dhaqaale ee reer guuraanimada xoolo raacatada iyo daaq raadista waa mid si weyn uga jirta dhulka Soomaaliyeed ee Geeska Afrika inkasta oo barigii hore 75% dadka Soomaaliyeed ahaayeen xoolo dhaqato waxa ay hadda u muuqataa in habnololeedkaasi uu sii yaraanayo maadaama ay dad badan soo galeen magaalooyinka gaar ahaan intii ka dambeysay markii ay burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya xoolaha nool ee dalka Soomaaliya waxaa loo suuq geeyaa dalalka khaliijka waxayna arrintaasi door muhiim ah ku leedahay dhaqaalaha dalka
iyo howlaha ay dadku ka shaqeeyaan. Intii ka dambeysay burburkii dowladnimada Soomaaliyeed sanadkii 1991, xoolaha nool ee dalka ma helin wax daryeel ah iyo weliba suuqgeyn fiican. Waxa ayna marar badan dalalka Khaliij ku mamnuuceen in xoolaha Soomaaliyeed loo dhoofiyo dalalkaas. Taasina waxay dhabar jabin kale ku noqotay xoolaha nool iyo qaybtii ay dhaqaalaha dalka kaga jireen. Ilaa iyo hadda waxaa dhismi la hay-adihii ka shaqayn jiray daryeelka iyo xanaaneynta iyo suuqgeynta xoolaha nool ee dalka Soomaaliya, iyadoo oo xoolaha Soomaaliya ay la dhibaataysan yihiin daryeel la'aan iyo weliba xadgudubyo ka baxsan xuquuqdooda nololeed. waa hagaag daawadayaal, waan filayaa inaad ka bogateen warbixintaasi markaasi aan kaga hadlaynay dhanka iyo taariikhda xoolaha Soomaalida. waxaan ognahay dadka Soomaaliyeed in ay markaasi u kala baxaan xoolo dhaqato, beeraley iyo reer magaal. sidoo kale xoolaha ayaa kaalin aad u mug weyn uga jira markaasi dadka ay dhaqdaan. xooluhu waxa ay kaalin weyn ugu jiraan dadka Soomaaliyeed ayagoo u isticmaala cad, caano iyo weliba markaasi in la dhaqaalaysto. guud ahaan daawadayaal, barnaamijka intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa. dhanka farsamada hagarlaaneed waxaa iga qaabeynayay Kooshin Cadde, anigoo Falastiin ayaa idinla socodsiinaysay. tan iyo barnaamijkani mid la mid ah intaan dib ugu kulmi doono, waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo. wiilgeel jiraan gaajadu karayn waa waxaa dhulkeena u gaarae laynagu garta